Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay telefoonka ku wada hadlaan hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uga digay faragelinta doorashada sida uu ka sheegay aqalka cad ee dalka Mareykanka. Wadahadalka ayaa waxa lagu soo diray dibadbaxyo ay mucaaradku soo abaabuleen ee ka socda Ruushka iyo ballaarinta heshiiska Mareykanka iyo Ruushka ee hubka nukliyeerka. Mr. Putin ayaa madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ugu hambalyeeyay guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka bishii November ee sanadkii la soo dhaafay 2020 sida laga soo xigtay war-saxaafadeed ka soo baxay Ruushka. Labada dhinac ayaa sheegay inay isku raaceen in la joojiyo xiriirka. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa mararka qaar ka gaabsan jiray Ruushka waxaana lagu eedeyn jiray inuu u jilicsan yahay Mr. Putin. balse madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Hussein Obama oo maamulkiisa Mr. Biden ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kalena lagu eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu ilgaara ku eego xukuumadda kadib markii ay sheegtay gacanta Crimea ay qabsatay bariga Ukraine ayna sidoo kalena isku ballaarisay Suuriya. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ayaa cadeeyay in Mareykanka uu difaaci doono danaha qarankiisa una jawaab adag ka bixin doono falalka Ruushka ee dhaawici kara ama se dhaawici kara xulafadeena ayaa lagu yiri war-saxaafad ka soo baxay dalka Mareykanka. Cabdinaasir Xasan Saleebaan